warbixintan waxaan ku eegaynaa diyaaradda Akinj ee Soomaaliya lagu wareejiyay qaabka ay u dagaalanto, nooca tiknoolajiyada ee ku xiran gantaalada ay qaadi karto, sida ay dowladda Soomaaliya ku heshay diyaaraddan, miisaaniyadda ku baxaysay isticmaalkeeda sanadkii, iyo waxyaabaha diyaaraddani ay dowladda Soomaaliya ka caawin karto. Diyaaraddii u horeysay oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee Akinj ayaa la soo gaarsiiyey Soomaaliya. Labadan diyaaradood ayaa ah droniska Turkigu uu sameeyo ee la yiraahdo Akinj, waxaana hadda mulkiyadeeda iska leh Soomaaliya. Diyaaradda Akinj waxaa ku rakiban tiknoolajiyad horumarsan oo adkaysi u leh inay hawada ku jiri karto 24 saacadood ilaa 25 saacadood. Diyaaradda Akinj waxay ku qalabaysan tahay inay qaado noocyo badan oo hub kala duwan ah oo ay ku jiraan gantaalada ridada dheer iyo rasaasta la hagi karo. Diyaaraddan waxay kaloo weerar ku fulin kartaa gantaalada SOM-A, cruise missiles, iyo kuwa la hago ee la yiraahdo Bozok. Waxayna qaadi kartaa gantaalada hawada sare ee la yiraahdo Kogdogan. Waxayna awood u leedahay inay ka hortagto nooc kasta oo weerar hawada ah. Diyaaradda Akinj waxay culays ahaan qaadi kartaa 5,500 oo kilogaram. Waxayna leedahay 2 matoor oo turboprop ah oo awood u siinaya inay hawada sare u gasho joog dhan 38,000 oo feet oo ay ku gaari karto muddo 25 saacadood ah, masaafo dhan 7,507 kilomitir. Diyaaraddan waxay ku qalabaysan tahay hannaan awood leh oo ay ku qaadi karto weerarada elektarooniga iyadoo adeegsanaysa nidaamyada ka hortagga, nidaamyada isgaarsiinta dayax-gacmeedka, raadaarka hawada, iyo raadaarka ka hortaga shilalka. Bayraktar Akinj waa dronis lagu sameeyey dalka Turkiga, waxayna leedahay AI artificial intelligence iyo sensors kala duwan. Waxay leedahay AI system, waxay isticmaashaa sirdoon macmal ah AI si ay u falanqayso xogta, una ogaato bartilmaameedyada, ugana fogaato khataraha. Sensors waxay leedahay sensors kala duwan. Waxay leedahay electro-optical infrared cameras si ay u ogaato bartilmaameedyada xilliga habeenkii iyo maalintiiba. Waxay leedahay SAR oo ka caawiya aragga xitaa marka roob ama ceryaama ay jirto. Waxay leedahay signal intelligence taasoo u sahlaysa inay dhegaysato oo falanqayso isgaarsiinta cadowga. Diyaaradda Akinj waxay kaloo leedahay EW systems si ay u carqaladayso ama u ogaato hanjabaadaha elektarooniga. Inay ciidanka Soomaaliya ku hubaysan yihiin diyaaradda Akinj waxay gacan ka siinaysaa inay ciidamada Soomaaliya ka gacan sareeyaan, ay ka gudbaan dheelitirkii awoodda ee u dhaxeeyay ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo kooxda shabaab. Waxaana adkaanaysa inay nolol ku laabtaan koox kasta oo weerar ku qaada saldhigyada ciidamada Soomaaliyeed sabab la xiriirta masaafada degdega ah oo goob kasta oo ay Soomaaliya ku gaari karto diyaaraddan. Diyaaradda Akinj waxay leedahay hannaan sirdoon oo awood u siinaya ciidanka Soomaaliya inay fuliyaan howlgallo gaar ah oo ay ku beegsanayaan xubnaha sare ee Al-Shabaab. Diyaaradda Akinj waxay kaloo Soomaaliya awood u siinaysaa inay ilaaliso hawadeeda, oo diyaaraddan ayaa ka hortagi karta diyaarad walba oo soo gasha hawada Soomaaliya. Diyaaradda Akinj waxay kaloo fulin kartaa howlgallo baadigoob iyo sahmin isugu jira. Waxayna awoodaan labadan diyaaradood inay muddo ka yar 4 bilood ku burburiyaan saldhigyada Al-Shabaab ay ku leeyihiin gudaha Soomaaliya haddii ay helaan gantaalada iyo xogta sirdoon ee bartilmaameedyada. Helitaanka diyaaradahan waa inay goob kasta oo ka tirsan Soomaaliya ay ka howlgali karaan oo howlgallo kala duwan ka fulin karaan ciidanka Soomaaliya. Sababtoo ah saacaddii waxay ku gaari kartaa masaafo dhan 277 kilomitir ilaa iyo inta u dhaxaysa 361 kilomitir. Haddaba sidee ayay Soomaaliya ku heshay diyaaradahan? Diyaaradaha Bayraktar Akinj oo lagu qiyaaso qiimaheeda $8 milyan oo dollar. Waxaa la sheegay in dowladda Qatar ay bixisay lacagta labada diyaaradood lagu keenay Soomaaliya.
taasoo ka dhigaysa qatar dalkii ugu horreeyey ee Soomaaliya ku taageera tiknoolajiyad casri ah oo lagu soo aadiyey waqti ay Soomaaliya baahi weyn u qabtay marka laga soo tago qiimaha diyaaradahani ay joogaan. Marka laga soo tago qiimaha diyaaraddu ay joogto ee 8 milyan, waxay u baahan tahay ku dhowaad 10 milyan ilaa 25 milyan oo ku baxaysa gantaalada ay awoodo diyaaradani inay qaado. Waxayna Soomaaliya uga baahan tahay si ay diyaaraddan wax uga beddesho xaaladda amni, gaar ahaan ciribtirka kooxda Al-Shabaab, miisaaniyad sanadkii ka badan $100 milyan sida lagu qiyaasay.